السلام عليكم أصحابتي كسر دوادا channelka maanta waxaan doonayaa inaan idin soo gudbiyo casharkeennii sideedaad oo ka mid ah casharadii imtixaanaha ee ku saabsanaa Microsoft Word tutorials. Casharkan maanta waxaan kaga hadli doonaa si aad u soo gelin lahayd image documentigaaga. Marka habkaad u soo gelin lahayd ayaynu caawa baranaa. Marka ugu horeysa markaad soo gelinaysid picture-ka waxaad tegaysaa insert dabeetana waxaad ka dooranaysaa pictures kabacdi waxaad soo gelinaysaa picture-kaad rabtid ayaad soo gelinaysaa. Aniga wax pictures waxa igu jira okay kanoo kale baan iska soo gasho meey kuwii kuwanoo kale baan iska soo geliyo kanoo kale baan soo geliyo. marka sidan kugu soo baxaya macnaha hadir wax weyn weeye waad yareynaysaa. marka ugu horeysa waxaad sameynaysaa sawirka ayaad dhigaysaa dabeetana waxaad tegaysaa halka ay ku qoran tahay format kabacdi waxaad ka dooranaysaa halkan position ay ku qoran tahay. position-kan marka inta meelood baad dhigi kartaa. waxaad dhigi kartaa top left, waxaad dhigi kartaa top center, waxaad dhigi kartaa right center, right top, kuwan oo kalena waad dhigi kartaa. haddana waxaan ka dooranayaa top center. marka waxaan rabaa column-ka ay ku qoran tahay picture inaan ku buuxsado. hadda magacii ID-ga wuu qoran yahay, magaciina wuu qoran yahay, da'dii way qoran tahay, lacagtii way qoran tahay. marka halka picture ku qoran tahay aan rabaa inaan ku buuxiyo. marka hore waan la ekaysiinayaa, waan yareynayaa. markaan yareeyo kabacdi waan soo qaadayaa, waxaan dhigayaa aan halkan dhigo alignment-ka marka hore hagaajiso. kabacdi waan soo qaadayaa sorry aan soo qaadayaa dabeetana halkaas ayaan soo dhigayaa. okay marka picture-kii aad tirto waan soo geliyay waliba sii kordhin kartaa isgelin kartaa. okay marka picture-saas aad soo gelin kartaa. markaad soo geliso waxbaad ka bedeli kartaa isagaad ku dhufanaysaa dabeetana waxaad tegaysaa design-ka ayaad tegaysaa. waxaa leeyahay format ku noqo waa kan formatkiisa waad bedeli kartaa, qaabkiisa waad bedeli kartaa, habka uu kusoo baxay sawirku sidaad doonto ayaad ka dhigan kartaa. drop down-kan ayaad soo furaysaa isagoo badan waa kuwan nooca doonta baad ka dhigan kartaa. circle-kaas baad ka dhigan kartaa, size-ka waad yara weerin kartaa. waxaad kaloo ka bedeli kartaa picture effect qaabka uu noqonayo kale. rotation baad ku sameyn kartaa, adigu waxaad bas rabtid ka dhigi kartaa. hadeerto haddaan kanoo kale isticmaalo kan dhinaca oo kale waan isticmaali karaa, kaasaas kale ayuu ka dhigayaa. waxaad kaloo change ku sameyn kartaa isagoo waliba design-kii iyo waxyaa ka beddelkii aad ku samaysay isagoo leh ayaad ka bedeli kartaa. change ayaad dhahaysaa file halkan aad markaa mid kale kasoo dooranaysaa. waxaad kaloo sameyn kartaa reset baad ku sameyn kartaa sidii originalka aad ku soo celin kartaa, reset dooran kartaa. marka wax badan baad ka bedeli kartaa. cabaar adigu practical ku samee oo waxaan oo dhan ku tijaabi. casharkeena maanta intaas ayuu ku egyahay. aad iyo aad baad mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullah.